miya marba anaga waxaan barinaa in uu dhinto muuqaalka shaydaanka maxaa ku dhacay gabdhahan biyo biisiya tartiib wacdo هلا كيشو يا أخي qofkan waa dhaawac wuxuu yaalaa bartamaha magaalada meesha laga dugaamaysto ku bari inta u imaataan isbitaal gay aad ayuu u dhaawacan yahay marka dhaqso ugu imaaday idinka maxaa kugu dhacay wiilkayga walaalkaa wuu fiican yahay maxaa dhiig kolkaa ka muuqdo dadkii walaalkii soo garaacay ayaan anigana gacmaha ka soo gooyay walaal horta aniga nafsadeeda wiil ayaa badbaadiyey wiilka makoo i badbaadiyeyne gabar ayaa biyaha afka igu qabta gabadhaasaan doonayaa baaritaanka markuu dhammaado kadib 2 maalmood hoostaada ayaan keenaya gabadhaas waxaan rabaa inaan guursado aniga wadna xanuun daawo waa loo heli karaa wiilkayga jira kale haddii ay tahay xitaa daawo waa loo heli karaa macno ma lahan laakiin adigoo xaas leh inaan naa kala guursan naagtaada maxaad ugu jawaabaysaa ii sheeg hadhow adiga ayay su-aal ku weydiinaysaa waatanaa maxaad leedahay markaas hadeer naag inaan guursada aniga yaa dacwo ii dood ka qabo gabadha walaalkay uu ku waashtay sida ugu dhaqsiya badan waa inaad ku keentaan aniga gabadha xaggeen ka raadina ciwaankeeda maba naqaanay war gabadha gaashaallaha baadhale baa la orinayay madane muxuu yahay hadduu dhalayna walaalkay ayaa jeclaaday runtii gabar waxaa la guursadaa marka adiga dhibaato ay ku haysto gabadha kuu naxariisato gabadhaana waa ay kuu naxariistay adiga inaad guursadna waad ku qasban tahay आग पानी है जवानी दरिया ये है एक तूफानी उठती ना इसकी रवानी करती है ये तो मनमानी सही गलत ये कुछ ना समझे हिम्मत से जो कटे उसी की मंजिल है यारा है उसका ही जीना है उसका ही मरना देखे जो कहानी देखो ना दुनिया उसकी सारी जो न जाने डरना उसके बारे में तुम सोचो ना आप कभी न मानी है वही लड़ाकू लक्ष्य उसी का ओ यारा आंखों में जिंदानी जो रहता सबसे आगे कहे उसे जग सारा बाबरा और जीवन जिसके अंगारा उसके आगे ही झुकता जा सारा सर पे खफर है और आंखों में जिसकी है ज्वाला उसके जज्बों का न कोई किनारा वो लड़का ही रहता न हारता वो बंदा जुनून उसका होता है यार नंगा जब चाहे मुड़ जाए वो तो रबर की तरह खींचे फिर वो मंजिल मैग्नेट की तरह वो कभी ना रुकते रास्ते में से तू चाहे तूफान आंधी रोकते थे
से बना आंधी पर ये तू चट्टानों को उड़ा अपनी कहानी अपनी लकीरों से तू बना सपने हाँ रख तू आसमानों से बड़ा तू रख दे हाँ रख दे सब रूल तोड़ के तू चल के बस चल के हाँ से तू उड़ के हटाओ कि तू अपने दाव दे दिखा मुश्किल से मुश्किल को आसान कर दिखा जिंदगी से लेके हक अपना ले तू है जो हिस्सा तेरा छीन ले istaag guduudkaasina soo ma jeedid weepayo soo ma jeedid dadkoo dhan meesha way ka carareen ninkan weli wuu taagan yahay waa nin sharci yaqaan oo inaad sawirtaa lakaad sheelaysaa facebooka rabaa inaad dhigtano miya mudane runtii markii ku soo laabato shaqada aniga aad iyo aadaan uga farxi waana mahadsan tahay yaqay adiga mudan mudane halkoo arrin kalaa jirtay ii sheeg runtii mudan aan howlgab markay noqdo dadaa garab iigu sii shaqada inaan kusoo laabto dadkaas inaa ii ogaatidaan u baahanahay intaas kaliye walaal harii kunkooy ku doonos walaal hari ah meeshan ma aha ee xafiiska igu sugo soo sheekiya wahaye midan hari ninka magaaladan uu khatarsan waaye haddii inta imaadan weyna soo imaadee waxaan ku dhiraa iska qaabil waan ku salaamay mudane harii ninka la dhahaayo si wanaagsan ayuu ii ammaanay midaasna waa midaan aniga muteystay fadhiiso wiilkayga fadhiiso waayahay waxay ila tahay meel qaldan inaad imaadeen waa maxay waxaad la imaadeen ninkaan aad u jeedid adeerkiis ayaan ahay hari ayaa la dhahaa walaalkiis ka yar ayaa jira keeshu ayaa la dhahaa aad ayuu u qurux badan yahay yaraantiis wuxuu jeclaa bisooladda inuu ku cayaar hadda markii uu weynaaday bisooladii ayuuba ku tegayba gabadhaada ayuu jeclaaday waa inaan ku darnaa marka burcadnimadiisa ku faanaya lagama yaabo gabadheedii inaan ku daro waxaan ahay boolis ahaw ama wasiir ahaw waxaad ogataa mar haddii gacanteena ay qoortaada gaarto sirwaalka aad ku kaadinaysaa taariikhda ayaana qoraysa midaas walaalkay gabadhaada mar la kulansii haddii uu dhididka keeni waaye isagaaba nin rag ahayn mar dambe kelmadaas afkaga ka soo baxday uu xabad ayaan afkaga gelinaya walaal bistooladda adiga aad sheegaysid annagaba waan wadanaa ogow haddii ay taada kugu yaraatana annaga naga soo doono tanna adiga iska xaraysa ayaan ku leenahay markood qofka aniga wanaaga ugu imaana haddii uu diidana burcadnimadeen ayaan tusnaa taasna aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso gaashaalla adiga si fiican ayaad kaartada u jeli taqaanaa gabadhaada waad diidi kartaa micno ma lahan laakiin hadda hurdadiinna way wanaagsan tahay cuntadana si wanaagsan ayaad u cuntiin hadda waxba idinkama hadlaysna laakiin mid ogow gabadhaada haddii aad isku dayday inaad diido waxaa hubanti ah taariikhdaadoo dhan inaad u baasbaxayso dhegaysta dan walbood iga leedihiin xafiiska ayaad igugu imaanaysaan gurigayga dadku ma qaabilo waa markii ugu horraysood qalad gashaan waad yacfiyey ee ka taga guriga si fudud ayaa waxaa ku tidhi halkaan ka tagaa anaga ma baxeeno ilaa aan danteenna ka gaarno hadda wiilkeennu wuxuu rabaa adiga gabadhaasi sharafle inuu ku guursado haddii aad diidid waxaad ogaataa gabadhaada 7 ayuu la gelayaa kadib ayaa la guursanayaa taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso arrintaa waxaa naga xigtay inta walaalkay isbitaalka uu ka soo baxaayo mar hadduu walaalkay isbitaal ka soo baxo naag la'aan guriga ma tegaayo midaasna waa inaad maanka ku haysaa walaal hari dimaashidaa waa taasaa haye dimaashida mustaqbalka shoobig waana si fiican u soo adeegataa arooska ma rabna annaga inaan daahino waan dadejinaynaa nabad wiilkayga nabad haa walaalkayga gabar qurux badan ayaa dooratay adiga midii horena inaad disho waadba ku saxneedba nasiibkaaga waad ku guulaysata ayaan ku dhahay kuu gashay yaaway ninka aniga ninka markuu dhimano adiga biyaashiinas kaasara inuu ku guursado kabarana ka sheekay oy waa maxay waxaan dhacayana waa 3 awood boolis biskoolad iyo tuugo dadkan waxay rabaan inay ku guursadaan aabbahan midaas ayuu diidan yahay oo dantiisa ma yaqaana asaga dadkan afkiina la gala ma ahayn muxuu la galayaana marwo dadkan awjeed naxariis baa ninkan adarkiisa ku saxan yahay maxay la gabarteeda inay wateen seerawanka intaan bacdeen waa dileen ku dhahay naxariis ma sameeyeen qoortay ka jareen dadkan awjeed waliba nuka boolis waa iska nahay iyan boolis naayaan ku dhahay khalada ay galayaan bacdeen nuka meesha loo inaan raali geliyo oo tagayna iyan raali geliyeena tasbidada nimya maanta inay suularto wax lagu ogaadaa markay badato xumaan cid wax noogu qaadi karta ma laha
sababtaa saman ayaan wadanaa annaga mideeda kaleeta ayaga wax walba ha sameeyaano laakiin guusha annaga ayay noo dambaynaysaa in iiddaada khayr u sheeg gabadhaydii gabdhaha run ahaantii hindii ku nool caadi ma ahanaan ku dhahay weliba waxay u dhaqmayaan gabdhaha yurubka imaada camal ma waxay kula tahay hindii inay dambayso hindii way horumarsan tahay way imaadaan u malaynaa aniga nasiib badneeyaa saakii iga soo horbaxa nasiibkayga aad ayuu wanaagsan yahay gabadhan aad u qurxan ayaan arkay waa inaan ku dhigsadaa marka waa maasan tahay aan ku dhahay kale walaalkeyshiyo qofta aruusaya warkaal haddii la maqlin waa lagu ka jiya hadda baa kuu sheegay digniina kuu sheegay qofkan qofka wanaagsan waa inaad raysataan qoftan waxaa gursino keeshuu baay ee keeshuu baay isku halay keeshuu muxuu yahay hal mar waa la kulma ayay ku ilaabaysaa fishaali cabdulka jeclaad soo midkaas mahana aha arya adiga u laclaca awood ku sii haddaanan dharka kala bixin ku dhaaday adayow waa yeelka naga tahabaraya cajuusada arya ugdanba haddaad taabatid ogaada qofkii korkeeda isku taabta waa la qasbayha kaalay maxaa kaa qaldan qofka waayay ku dilaysaa naamu waa la tamakeen qofta ru'aanti aad bay qurux badan tahay waryaa hoy ninkaas ma arkin og qoftaan usaa jecel aligu kabina afaareeda ka bax adiga kii sugaa sheegiisa xaggayga wuxuu ka yahay canug 3 jira gabar weyna 20 jira ma ka faal qaadi karo balse aniga waxaan ahay 20 jira gabadhan oo kalena waa dadka loogu talagal inay la wadaagaan nolosha aniga waxaan bala qaadi karaa gabadhan nolosheeda iyo mustaqbalkeeda in aan dhisi karo aniga noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad jecelkaaga naftaada halis aad u geliso anigana waxaan diyaar waa nafteeda inaan halis u geliyo dhib walbo khatar walbo gabadhan darteeda diyaar waxaan inaan u galo noloshan waxay macaan leedahay mataqaanaa markaad naftaada jecelkaada halis u geliso jecelkii ku qaadan maaha weligeed mid ay ilaabayso meel walba guurka ayaa laga sheegoyaa adiga nintooga maxaad guursanaysaana aniga amarkayga wuu ku dhacoyaa marka maxaa iskaga dhiibi waysana aniga maa diidi karahe qof walba mustaqbalkiisa asaga ayaa go'aan ka gaari kara adiga markaa iska diiday ahayd aabbaaba gaashaanee toogada maxaa qorta kuu geliyey taas waxay ogta adigoo dil toogasha lagugu xukuma adigaaba ogol iska dhimi saaxiib mararka qaar waxaa la fiiriyaa duruufta meesha taalo duruufta meesha taalana waxay tahay dadkaas waa dad tuuga awoodna way sheeganaya sharciga gacantooda ayuu ku jira aabbihi waa daacad waan ogahay laakiin waxaan u diidanahay inay dhibaato soo gaarto anigana aqli ayaan isticmaalay sidaas ayaan oo aamusay marka ma fahantay aniga aabbihi aad ayaan uga naxaya yaaqin mid kale iska jeclaa oo la baxsano waada ii fiicnaan leed haddii aan helayo nin aan ogoleen korkayga in la taabto oo geesi ah laakiin waxaan aaminsanahay maalin maalmaa ka mid a inaan helayo nin sidaas u fiican oo i jecel aniga aana ogoleen aniga in xaggayga loo soo dhaqaaqo gabdho akhbaar fiican ay dhihaya xafad waa iskoolka jirto maya wiil cusub aa iskoolka kusoo biiray wiil cusub ah wiil cusub aryaa wiil cusub aa kusoo biiray iskuulka wiil cusub waryaa gabdha waxay ii sheegaan see loogu ogolaan karaa gabdha iskool dhigtaan nin isku soo biiro nin meeshaan intaan aan joogo mamnuucay ka tahay adiga nin ma tiidliya macalin aniga nin waan ahay laakiin nimanka waxaan dheerahay nimanka nimankooda nin kale nas meeshaan imaadan aniga raali ma kana qaayi marba ininka ana idin leh ininkana ana ileedihiin oo kaale hadda waaba diidantiiniya naag walbaan gabadh inaan ka qabo waryaa hoy doora diikheed ma moogo doorahin diikheed ma moogo damac la qaadaa dalkana ka tegaysaa dana eegama dawooshen waryaa hoy idinkaadi ahaleed maxaad ii leedahay ninkaas iisheeg baadaan ku weydiyooyahay iisheeg adaan ku weydiisay yelle aniga haddii ahaan lahaa si fiican ayaan hab u siin lahaa oo macna waa ku baryaynaa naag nin la-aan ma noolaa karta naga daano adiga iimaanka allaniga siiyo naag nin la-aan ma noolaa karta yaa ku yidhi ani tan waaba ka sibe meeshaa markay ka baxdo shaxaaday magaalada u tagtaa laakiin ani shaxaadkaasaan ka hor joogsaa nin maarkeys waryaana cala qabtooshayaaliyo waalidiintiina meeshaan waxbarashaan igu soo dira niman inaa soo dhaweysay maa nin haddii la soo dhaweeyay anna li soo dhaweeya nin kale maba soo gelaayo meeshaan soo baxa lamaantiina macalin maxaad igaa gashanaysaana adiga qayladiisaan diidooya waad ku qurux badan tahay macalin waa liigu dhaliyaan ku dhahay soo baxa kan nin ma ogol iimaanka alla ka qaaday
قدامي كوسي 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 داني مينو maxaa qaylinaysaana maxaa la qaylinaysaa maxaa la yidhahdaa kollejkaan anile ninkee war sharcigii hore waa la bedelay sharci cusub ayaa kollejka loo sameeyey miska qaylinaysaa adiga muwaalantahay mawaalni ee waxaa ii waxaysaa maamulaha naftirkeed maamulaha naftirkeed maxaa ku daarin ood la qaylinaysaa maxaa ku daarin ood qaylinaysaa ay leedahay meeshaan ninaa imaaday nin sas ku soo geli karaa nin aan ani ahayn xasan jilico muu ogola idinkana waa imaayaysid dadkaan soo wati muujada anigay taageeri yihiin ballan waayaan ku dhahay waayahay adiga dadkan kugu raacsan dadka waa igu raacsan yihiin exusdana igu raacsan shaqaalaha iyo madaxda dhan ay raacsan yihiin aniga gadaasheeda fiiraa loo joogaa muujadid miya aawa hadda waxaad aabiga gadaasheeda mala jooga miya ya malisiibta keligiya maamula raalla ahaw gabdhahan waxay dheheen waa kula jirnaa nin marabno adle nin noo hadda markii meeshaan imaadina waa ii kala baxeen waa ujeeda dhib ma lahan adiga waxa wanaagsan amarka maamulka uu soo bixiyey inaad diyaar u ahaato kursi walba oo kollejka ku yaala wiilasha in konta kuraas looga gooyo ayaa lagu talagalay marka sidaa daraaddeed haddii aad dood ka qabto adigoon banaabax sameyno carruurta soo shirin waxa rabaa maamulka inaad u tagto laakiin waxaa kasii wanaagsan inaad iska dhaafto maamulka hadalkiisa runtaa waay bes iga raalli noqon ku dheh anaa gefi ma oho khudbadayda leen ku ekaha naagahana niman adii ubaanyin anaanba ku dara raalli ahaaw gabdha adinka ma waxaad rabtiin wiilasha cusub inaad la kulantiin soo sax maahana laakiin aniga ayaa ninkaga hormarayo midaaba teleefonkiisa gacanta iga saareen okay tartiib yaa qays aniga ayaa nin xalinayo sawiradoodoo dhanna halkan ayay ku jiraan emailka 300 waaye website-kana 600 waaye yaa haddaba ogaada iska soo tuura lacagta maxaa meesha ka dhacayana oh horta ninkan araggiisa ma xuma sida shukulaatadii oo kale aad ayuu u macaan yahay qorshaha uu kollejka u yimid waa laba nooc inaan annaga ku dheelno ama inuu asaga nagu dheelo ani gabdhaha yara istrukeyan waxba muxuma laakiin naagtan ay fareeja la dhahayo da'mu dhigta dugo dhiman bis igaarkeed camal waay waa istrukeyosa iimaanka ilaahay ka siiyey subax wanaagsan macalin subax wanaagsan macalin war adduunya gadoon inas yahay 7 jir waaye wiilaa imaadiyay maqashay rosetay afka marsoosa bilcaanta birkood mashiixaayaan mudana waa ku salaamay adduunya gadoonkan arka ninaa imaadile la maqlay ajariidhanaa la soo qaaqaabi iimaanka allah ka siiyo kuwaana mudanaha maxaa daaray waaw wiil farta ka xiran ayaa yimid kollejka akshigiisa xataa waa khatar gabar kollejka dhigata ayuu rabaa ayaan u malaynaya soo baxay sawirkana la tusay iyo qaab ahaantiisa hadda ayuuba qurux badan yahay caadi maaha ninkan maxaad i tirinaysaa maya waxba maahane ee na bixin ninkan okay macalin jeki gabdhahan oo dhan maanigu keliya isa socdaan mar macalin jeke haddii itiri macalinkaagan ay gabdhaha waa qaabile ani laakiin keligay ahay gabdhaha ma la hadli aqaano waan ka baqayaa markaan hor istaago waxaa la rabaa kalsooni isgili macalin jeke yaa kuu duceey waayo maxaa sameeya macalin ii sheeg waa qaabiley haan ku dhahay kalsooni buuxdan ku siiyey waa duceysa waa mahadsantahay macalin aad baad mahadsan mahadsanidin gabdho magacii waa kaarti krishna kaarta krishna kusoo dhawow kollejkeena mahadsanidin maanta maalinta jacaylka miyaa ubax ayaad gacanta ku wadaaye aragtida koowaad maxabo ayaad nagu rabay maxabada waxaa loogu talagalay dumarka haddii soo dhaweyn laga helayo waa wax wanaagsan anigana waan ku faraxsanahay iga guddoon mahadsanid dhinacaagana miisaankaaga 75 kiilo kalarka jeceshaa malaaga gabdhaha qurxoon ubax waa na badiyaa gabdhaha noocee jeceshaa kuwa fashionka gabdhaha fashionka nooceed ka heshaan adiga manoo sheegi kartaa kuwa da'deeda
gabar saaxiib ma leedahay maya asxaab ayaan leeyahay jacayl maya gabar aad ka hesho ma jirtaan maya haddaad heli weysan haddii aan heli waayo nolosha ayaan isdhaafinaa waa balan nolosha aan nooga sheekaysay kulankaaga aad ayaa ugu faraxsanahay waan ku salaamay waan kaa qaaday anigu waan ku aqaanaa ma ogtahay anigu sidoo kale waan ku aqaanaa laakiin sidee gabar magaalada degan aniga aan aqoon u lahayn wayba yar tahay aniga markii uu samaa faraa xidhnaa ayaan laamiga kuga arkay sharciga waa dhowrta adiga aniga sawir ayaan kaa qaaday kadibna facebooka ayaan dhigay waad mahadsan tahay laakiin hal midaan raba inaan kuu sheego wiilka adigu guursanaba ma aha mid kuu qalma dadkoo dhan sidaas ayay maxaa dhahaan dhacay ma iska dhaaftid maxaa sameeyahay duruuf ayaa jirto inaan ogolaado waan ku qasbanaa mana diidi kari haddii ogolaado waa dhib haddaan diidana wayba ka sii daran tahay dhib malaha magacii waa kaarti krishna waxa kale kugu taga fiirahan mahadsanid adigaa mudan kulanka koowaad ayaabad hadalkaada igu qancisay aadaad u mahadsan tahay sidoo kale mudane shil labaad ayaa magaalada ka dhacay maalin cad ayaa dadka la dilaya xayawaanimada way ballaaratay maxaa kale keesugii walaalkiisa ayaa ka dambeeya adi ma caddayn kartaa gaashaan laatay maxaa wax ugu qaweysa ii sheeg be wari dhegeysta hadal meeshaan looma baahna warbixintan dadka idin soo siiyey hal qof markhaati ha ii keenaan waxaa idin tusaa wiil iyo walaalkiisa inaan xabsiga gudaha u dhigo haye yaa maanta xiisa ma jirta maa tiri sawirkii wees xisad seerabtiin idinka seewa waa igu joogjoogsoosiin madaxayga istaagosiin be maxarabtiin kaartii kabadhi ayuu dheelaya yaa asxaabay akhay maxayna soo baxa ka kaartig maa kabadhi ii dheeloy haddana maanta kabaddi 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 jag iga dhaha jag iga dhaha oo kaali kharajo muhiima eed saa in loo dhedheelo haa laakiinse anigii adiga kuma jirna dheeshaan ogow yaa yaa kabaddi 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 macallin jeki ciyaartaan ciyaar rabo dhibaata ma iga imaataan ila keligii ayaa ragka halkan dhib male aboo miixa waad mahadsantahay diiq kaligiisa doora dhex ordaayo deb waa ku dhacaa nasiibkiisa isqabaa yaqa isbitaalka u qaada yaqayo dhaqsada isbitaalka gaarsiin beella waaye be haddiiba gabdhihii nimanka ay wareeriyooyin dhulkane wab ay ku sii ku joojoogsooyin aniga waa fofooriya aan ku yidhi waa fofooriya waan ku salaamay waan kaa qaaday kalaya maxaa halkan ku fariisiyey aniga hal dhib ayaa haysto dhibkaas ayaan inta la fadhiya sidaas darteed waan fakirayaa hadda marka ii sheeg waayahay walaalkaarti iyo asxaabtiisa aniga markaan gurigayga aadayo iyo markaan ka soo baxayaba iyaga ayaa i daba socdo teed kale haddii aniga qof jidka socdo ila hadla xataa qofkaaseeti si xun ayay u garaacayaan dhibaatadaas ayaa aniga i haysta dadkaaseeti dad ay dhaafayaan ma lahan inaan meel aada xataa way ii uriyaan aniga cidna lamaba hadli karaba sida darteed iyaga ayaan ku cabsanayaa hay macallin jeki welwelka dhaafgalaan ku dhahay dadka okay adina fasixino haddeeraan galaa gartaan dhegeyso hal maalin keliya dulqaado ay guri macallin jeki hawshaan waxay ka dambaysa way kuu dhammaanaysaa qura free ayay noqonaysaa waan ku baryaa kaarti kaftanka naga dhaafno waryaa waddada noo baneey
Oye, walgad socda adiga. Istaag ayaan ku dhahay. walaal waa ku salaamay walaalkayga yaraa waan kaa qaaday noloshayda laba qof ayaan jeclaaday waa adiga iyo adeerkay adinka dartiinna si aad farxad u heshaan wax walba waan u samayn karaa laakiin adiga waxaan rabaa magaalada ka baashaal aqligaadana waa inaad isticmaashaa war adiga intaad nooshaha walaalkaad magaaladan waa ku raaxaysanaa uma jeed siduu faraxsan jecel ayaa galay runta waay dhib ma lahan asigale hal mar ha guursado jacaylka inta afku hayn waxa laga yaabaa in uu burburo taas aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso maxaa idinku dhacay aniga gabadha gaashaalaha ayaa idin dirwajigin muxuu sidaa u yahay dhaawacan ayaa idin soo gaarsiiyey wardee haddii nala ogaado unukoo dhan waa noloda la-aan baan ku leenahay war maxay tahay dhaawac wejigiina ku yaala ii sheega bal yaa idin geystay kan dartiisa noogu dhacday kan dartiisa ah on jidkii markaa soconin nin islaameesna u daadaansada beerkaana la kasoo tuma galley camalan oo laxan jiriyey dooli haddii aad gambareel qoorta u gelisaan oo mukulaal aad u dirtaan mukulaasha ii deedo waay aniga ma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso hay gabdho maxaad ugu dha halkaan u fadhiisiin waxaad ogtihiin dad baashaalahay oo kale oo buug jecel akhrisanayo walaalkeeshu ayaa walaal fishuu soo wacay waa ku salaam maanta aniga dib ayaan kugu soo laabtay runtii nafsadeeda adiga ayaa badbaadiyey maanta haddaan noolahayna adiga dartaada ayaa u noolahay marka waxaan kuu sheegaya maanta inaan kuu soo socdo waana kuu imaanaya aad iyo aadaana ku waxaysa mar dhoweyso intaasoo keliya dhibaatada ma ninkii adig ku guursan lahay miyaad ka baqaysaa kale yaqaaniga nin tuuga miyaan guursadaa nafsadeedaba kuma aaminaya ninkaas maanta hadduu tuugaya waxaa laga yaabaa marka uu ku guursado inuu iska daayo oo nin fiican u noqdo bal ka war markaas marka kaale aniga maad rabtaa inaan ninkaas nin fiican ka dhigane nafsadeeda qofkaa rabta ma dooran qof walba dooq ayuu leeyahay balse dooqiisa maahan miduu helaayo waxaa laga yaabaa qofka qofusan rabin inuu helo aniga cabsi darteeda haddii aan u ogolaan waxay kula tahay nafteeda inay ku faraxsan tahay ninkaas aniga ma rabo maxaad udiidaysaa nolol heer sare ay ku noolaan lahayd war nolol heer sare ma rabo aniga nolol farxad le ayaan rabaa aan ku noolaa rii habeen iyo runtaba midna lama qariyo dadkan hortooda ka cadday aniga inaan ku jeclahay adigana aad i jeceshaa middaas inaad ku nabadgeshay ayaa laga yaabaa ogow fishali xageed ii waddaa adiga ii sheeg fishali xageed ii waddaa fishali isdeji adima xageed ii waddaa ii sheeg ilaadan loo adag halow idhageys dadyow dhammaantiin isku imaad waxaan rabaa dhegihina inaad i amaahaysaan aniga waad i taqaanaa magacaygu waa fishaali waxaanay dhalay gaashaanlaha gobolkaaneti waad ogtiin aniga waxaa laysiiyey keeshow adigana waad wada ogtiin aniga keeshow ma jecli waxaan u ogolaaday daruuf jirta awgeed laakiin aniga waxaan jeclahay kaartig aniga awal awood aan uga hortago ma haysan laakiin hadda waan haystaa kaartig aniga waan ku jeclahay waxaan rabaa inaan kula noolaado adiga ama ogolow ama ha ogolaan nafsadeeda adiga ayay ku rabtaa aad ayaan kuu jeclahay kaartig aniga waan ku jeclahay mana kaa dabaaraa nafsadeeda adigoo keliya ayay kuu baahan tahay kaartig go-aankana gacantaada ayuu ku jiraa kaartig inakan walaalkaa ku wacay war ma jecli mana u tagaayo u sheeg isaga jeclaa ma jeclaa ninkaas waxaasi ma qoreen hay arrinta maxaan ka dhahaa ii sheeg maxaan ka dhahaa maxaa la dhahaa waa gelaysaa bag iyo xawada ka dhawey gabar diidan in la kaxeeyo haddii aad idinka xog ku kaxistaan waa calaamada ay burcada leeyihiin amaba lagu yaqaano war adiga yaa tahay magacaygu waa kaarti krishna labalabada aawadiin maahan midaan qaadanaya aniga hey annaga aqoon ma noo leedahay aqoon iska daaya aniga si fiican ayaa idin qaanaa balse ka waran gabar haddii wiil ay tiraahdo waan ku jeclahay wiilkaas hortiisa haddii aad ku kaxistaan wiilkaas maxay ka aaminaysaa inuu doqon yahay aniga waan ku qasbanahay marka kartideeda inaan idin tusay gabadhan inaan jeclahay wax yar u kaadiya fishaali dhegeyso jecelkaaga yuusan noqon mid aad ninkaas aniga iigu reebaysid jecelkaaga ha noqdo midaad ku guulaysatee run ahaantii markaad jecelkaaga ii sheegato anigana aad ayaan kaaga helay waana ku jeclaa fishaali fishaali jecelkaaga intuu ila jiro lagama yaabo aniga inaan guuldaraysto hey ka
kan waa kii ina garaacay qofkiina wadkiisa wuu yaqaana haddii aan wejigiisa xirta xitaa aqoon ayaad ii leedahay sooma imaba ilaabin uriyaa kolajkan gabdha masaakiin ayaa dhigto balse waxaan kulii lacaga dhigo لكن والله منك وكاسا نفس كده بدنا ها waaye ani adiga saaxiibanahay halka maxaa ka qabanaysaa ninka ragga looma baahna naagan rabin inuu guursado ee waxa loo baahan yahay qof asiga jecel inuu guursado haddii uu guursado qof aan jecelayn nolosheeda way baaba'day asigana sabab ah nolol fiican kama helaya gabadhaas noloshiisana way baaba'aysaa maalintaas markii aan ku badbaadinayn waxaan u baahnaa dadka adiga ku dili lahaa cabsida aad ka qabto in aan kaa baaba'iyo waanu ku raadinaya inaan adiga ku arko waana ku arkay ogow gabadha aad u socoto inaan aniga jeclahay biyo ay ku siiso naftaada ay ku badbaadinayso inuu jecel kugu gala adiga kaale فيشالين وحقيقة ما حد كلا ذلك ورياه هيدين عيال ير أنا كرسنا وكبر يا ولا هيدين عيال ير ما دام أشيك تودي بتبادي سابقة أرض أسكتك هي ولا بس وكبر يعني خلت كان قال وكسر لي مركل مو لقناي قبل أسر ما في الرباب ولا كان موضوع اسمه ذي مجال كان إنه أصير كريه الطريق مسوي اسمه ذي اللي معه مجال كان لك خلف ير مكي كان قلنا وضع بيسا إذا كان قلب مكان قشان واحد بنتي إني لا عسيس ما ما صعت علي ولا كاي مساكين دباتة أدو جيستين ولي بوحي اسمه جران عرور إيرالي دباتة أدو جيستين ناف موجود بدلك التعليق شيء مركز وديك بتبالسة أنت كسر سلام يا وعدي أدي بتبادو مساكين دباتة أدو جيستين ناف وأنا تسان مركز كذي أورددنا سجار أي وحوي شيء يعني إنك كشبه إلى يراد لله إلى يهدر كنا من لجو شيء وروح قدام بس مركز قال ين لا يرى بدن أسقى كوه تحترا أي لا يري إن مش أسلجوا أي
wixii warbixin kalena anaga soo gudbi doonaa row taliye ninka ka shubaayo shal dagaalka u geliya lagu la'yahay waa la'yahay ha halo gareesaa loo xiriir walaalkay orda ii soo dejiye maxaa u taagantii walaalkay ii soo dejiye socdo tartiib soo deji saarigaas ka furmin saariley kac yaa saarigan ku xiro saan ku galay ninka adiga markii hore nolosheeda badbaadiya ah maanta waa kanaa sidii dumarka oo kale igu labisa saariyo iyo xade haloogaye waa ii dhamaatay sharafteeda waa u dhamaatay aga dhigo ninkan adinka dartiina leh wax muu samaynin anaka naftirkayna mustaqbalkayna evereska dhiga waryahoy anaka naftirkayna gareeskaas noo xiri inaan u xirnaa ballan ee waryaa kama dhaafeen aabi nimanka yaa bisaaleen nolosheeda ku ciyaare reer biisaanma ku xiri walaalkay aniga ma dhaafayo qofka sidaan u galay waa ballan inaan asagana garees u xiro siduu walaalkay ugu xiray oo kale ma daynayo kaas mana iga badbaadayo waxaan isdhahay isaga ayaa ku doogaya maantana waa kanaa horteeda ayuu ku dhintay aniga mar walba waxaan jeclaa beedkayga asiga inuu laakiin hadda waa kanaa beedkiisa ayaan ku waya aniga way dhamaatay karabla-aan ayaa igu dhacday maxaan sameeya aniga wiilkayga waa kanaa meeshaan ayuu maasa uga watay reer biisaale inaad soo dillo hawdoodaa soo kiciyeyna ma dhaafin dhowr mar ayaan kuu sheegay haddii aad hadalsi war wanaagsan ku hadal aniga hadalkan hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso inta meedkan oo noo yaalo looma baahna wax dhaqdhaqaaqa inaan samayno dhib walbo anaga noola geystayna waa u dulqaadanaynaa aniga hore uma dhihin ee taariikhda ayaa xusayso kadib ayaan tallaabo sharci ah ka qaadaynaa inta laga gaarayena maan anaga wax dhaqdhaqaaqa in aan samayno ninka wiilkeena sidaan u galayna lagama yaabo in uu naga badbaado kow ayaan ka siinaynaa waan dilaynaa halo walaal kumaa tahay adiga anigu waa neeb ah in lay weydiiye meeshaan ka imaaday iyo qofkaan ahay waxaad weydiin kartaa oo keliya sababtaan walaalkaaga sidaan u yeelay iyo asbaabta keentay midaasoo keliya ayaa loo baahanya inaad iga waraysato aniga saqajaannimada walaalkaaga sameynaya ee gabdhaha magaalada joogi waayeen asiga waa dulli adiga waad ka sii daran tahay hadda ka hor waxaa jiri jireen 200 walaalo midna mid kale khaladka ku gal mid kale wuxuu jiri wuu saxan yahay ilaa uu meedka walaalkiis ka arko markaas ayuu aqoonsaday walaalkiis inuu qaldanaa marka adiga noocaas ayaa tahay warkaadu wuu weyn yahay wejigaaga hor keeni kartaa adiga midaas aabahay ayaa i baray aniga adiga waxaad iga badbaadaysaa mataqaanaa sida walaalkaa oo kale gabdhaha laamiyada kuma qasqashaadid haddii aad gabdhaha laamiyada ku qashaado waxaad ogaataa sida walaalkaa oo kale laamiga in aan ku dhigaayo mana iga badbaadaysid midaasna hore ayaan u ballan qaaday aniga halkaan waxaan u imaaday libaxyada isma hadiyana inaan u dhammeeyo waxaad qalad gashay walaalkay korkiisa markii aad taabatay midaan haddeer waa boorsamiindo filinka waa uu kuu dhiman yahay walaalkaa kaa yaraa ani waan u degay balse asiga wuu ifahmi waayay saas darteed qadka ayuu ka baxay adiga haddaad ifahmi weysan waxaad ogaataa inaad qadka ka baxaysid adiga hadal walbo afkaaga ku soo dhacay waad ku hadashay laakiin aniga hadalkayga si fiican waa inaad u dhegaysataa aniga ballanta aan qaaday sidaydaba waan oofiyaa waxaad ii sugtaa oo keliya walaalkay meedkiisa intaan ka soo asturaayo kadib dunida meel walbo adiga aad kaga dhuumato waxaan ahay
qofkii kaa soo saari lahaa mana laga yaabo in aad sinna iiga badbaaddo adiga bastriyo okay haddii sidaas tahay waxaan raadinaa meelaan kaaga dhunto ugu horrayn googlaha buu weydiinaaba googlaha haddaan ka helo meelaan kaaga dhunto way ii fiicanta waa kaa dhumanaya waan ka xumaa googlaane wuu isoo qaban laahe dhib ma laha ajensigaan tagaaya waxaan leeyahay tikid ii jara oo ninkaas aan kaga dhunto meel ii geeyaan leeyahay inta ka shaqaysana xafladiinna waad sii wadan kartaan qofka barnaamijyada noocan oo kale ku dhaqaaqa waa qof jeceel ahaayo mideeda kaleeta adiga arday ayaa tahay maxay tahay sababta kugu kalaftikiisho inaad dishid aniga waxaan ku dhihi lahay barnaamijyadan faraha kala baxa mudana bilaasheedii u eedeynaysaa kiishu baaya asaga ayaa gacantiis ku dilay dilalka noocaasoo kale maxkamadda waxay ku eedaysaa inuu ka dambeeyey qofka ku kallifay qofkaas gaashaal ma haddaad hurdada ka soo toostay markii asiga iyo walaalkiisa magaalada ay qasaayeen gabdhahan ay kursanayeen waayelada ay dilayeen adi xaggeed ku nooled ma hurdaysa xilligaas ii sheeg waxaan malaynaya haddaa soo nabdaaday marka hadda adiga amar diidda miyaa samaynaysaa madaxda dalka iyo mas-uuliyiinta haddii ay wax ka qaban waayeen dhibaatada lagu hayo shacabka marka ma diidantaha anigoo kale inaan dhalanayo oo waxna u qabanaya masaakiinta iyo shacabka weliba dad ayaan abaabulayaa oo weliba sideedoo kale ah masaakiinta iyo shacabka iyo waddankooda wax ku qabanayo فيديو كبرية استاك فيديو هيدي لو كبرية أنا كذا نقول لهم كفتر استاك فيديو كن أما كنا فيديو سي أما كسينا يا أخي فيديو أنا إدامية كم كذا أمريكا جرو بين أي شيء جيسا والله يا تادي أي نو فيديو فيديو ما يا فيديو وكبرية جودا ودور سفلة وكبرية إيه أقولونه أوكي هذا يا نجادي لا قبل جعشان مريكن كأي كنوشان ورناجين دي بدي جرو مو واحد لا سرق إني قيميان بين أي وشيغان لكن بين لها نقطه أنا جا أي دبتاني واحد هاي ينصو سارايا أنا قبل يرانتين أي أسنقيني قبل قلسنا عديتها خفك أولى أو الشغلة وأذيك لكن مسج كان قفك سوقر أخبط ولا إن أوجدت أذيك ديب مو وعد أدرس كده مو وجدتنا أدرس كده معي أنا ما أقان مالي دقنت هاي مدة ذيك له قولي يصب الدكتاني مو قلدا ما بلاوده بين لو من وعد سنة نغتك تلافك هدي وكم بقية كارتك وحن لنا إنه عاجزي أديك ما عاجزنا أبغى كبرية إيامي هدي أنا قاعد جودة سوحتها هاي ويقول لي إن ديار نقطة خفت أورس أنا الشجع وأديك إيامي وكبرية إيه أقولوا تلافكنا أساس هذين بلون واي بليورا أديك ما إسرع في سنة هاي قلبي قاعد محاكو جريشة قلبي أبي وكليه كجرو أبي نقاتي نقاتي هنا اتكلم تروها يا ظني هداد أنا جعلاتي رو بلان عمري قال أنت كدمن فرحت أيات كل ما السنة فيديو أديك كارت ملاجع عشانه هويدي يا بي أنا غير أي جيريودين كدبنا أغيرك أي إسوا كرصدي كارتنا ولقيس إما درنسين إنا نعيد لأهاي لكن شاء الله مركو وحول بإيشاقي أيان أغادي عنك إنا نجعلها ولقيس حد رافعة قلبي جيجنا أو بوس وين كلين جعلك إنه واحد جريه قف كان أي واحد جعلان كرتو وحن كو أغادي كارتي مركو نولشي دكو صوبيري مركز أيان وحول بأغادي عنك إندانا ويك الفرمان برافو عليك وان كفر عصاه ما دام قبلت إذا أي ويل جعلاتي taasna waxay cadaynaysaa in nolosha ay qof la wadaagi rabto aan ku faraxsanahay gabadheedii dhegeysto afar beri kadib waa dhalashadaada markaas ayaan kaga faa'iidaysanaynaa oo wiilka runta loo sheegaya okay soo maaha maya aniga ma rabo arrimahayga kaarta in loo sheego waxaan rabaa aniga afkayga wax walba inaan uga sheegto buuggaana waa buuggii hooyaday xasuusteeda aniga wax walba waan jeclahay iyo hooyaday wax walba ay jecleed halkan ayay ku qoran yihiin mideeda kale aabbeeyo hooyaday meeshay isku guursadeen ayay waxay rajadeedu ahayd aniga inaan tago markaas kadibna anin ku guursado sur ayaan aadaya kaartina meeshaas ayaan jaceylkayga ugu sheeganaya aniga waan kugu raacsanaya ra'yigaaga gabadheeda meekab wixii shir aan leeyahay dhan jooji gabadheeda ayaan hindiya u wadayaa sidee kaa noqotay ani markaan ciyaal mihi waxaan ahay qof weyn
waana ismaarayn karaa adeer kaarta ayaan soo afduubaya kadibna waan soo noqonayaa sabeela maahana afduuba For more interesting movies, visit mysomali.com. kaarta maxaa jirtaa istaag aroos ma jiro aroos ma jiro sanaama soo socda yaqin soo socda ka istaag meesha adi sidee maraykanka waaba ka tegaynaa meesha surweela ka hadlaysa sunaami ayaa meeshaan ku soo socda yaqin tsunami sidee tahay ay saaxib ay sidee tahay adigana gudahana soo geligaya soo baxnay kaala sunaami buugna surwaalka maxaa ugu soo carartane sinaani agsoo rortaniya vidya waad ogtahay kaftaga noocan oo kale inaan ka xanaaqanayo runtii hadda ma xanaaqdana adiga katig fidyaha walaasheeda waa fidyaha walaasheedana aniga ayaa qaba haddana waxaan nahay famil boodo adigana ka xanaaqda ma ahan yaka iska dhaafa xanaaqee meesha hadduu jiifalaa ka waran sunaamiga ka kor imaan lahay saacadda ka dhaleena bas naga dhahaya khayse waa si haye okay ma oo haye la tuura haye maxaa xarashi madaxa haye maxaa kugu dhacay maxaa la fikiraysaa walaal ma ila hadashi qoftaas saudiyasan aba walaal haye ma ka hesha qoftaa ma ku qanacsi ma kugu wacaa ii sheeg igu wac waryaa hoy yarey kaale حاجرة يها عاو معناها ابو مدح الذهب خوت الذهب علوش الذهب قعمها دن ذهب كل هذا نوض الذهب وتايده ان من دافتينا وايد تروغينا واي والله دافع لكن حرش مدح على طورة هدي مدح او قصبح واسك بحسا حرش دو قصبح انه قفتها وانه تجيسا واي فانت يا ملينا نو كارتك فرحات اياد كسواتين هاو مالينا فرحات اسمها ايدين دمشترها فرحات اسمها ايدين كبر برنا معايا الاسحابتي سو اركيا والله باشال يا باور وضوئي باشال اسك قال ادين كدن مضي يسو جيسنايو واتوري واكاس حضرتك هو صح يا هاي شيلنكي يا وباهنا walaal xarashi madax waxba ka moogay dadkan baashaal kale iska هاي ساستتاني هذا وضع عيارين سي شيلنكيغا يسو صار مسألة صبح سوالك تقول يا كالي ورسيكا يا سيو وريا جوجا كالي أبيك وريا فوق أنا قلت أنا وربي إنا وضع عيارنا أديك تحليل معك سوكلي وكبريا سبع ما وكبريا بدك ما تسكت وكبريا وكبريا war aniga ciyaarta noocan oo kale waan soo ciyaar tinta ida aniga ayaa ciyaar fiican kula ciyaaray haye ani ma ila ciyaaraysa aniga inaad la ciyaarta aniga bro laakiin waxaan ku sheegay sharaftaada ana ku taaban inaan ku ciyaari doon dadka hortooda wiliba inta afkii la soo galay naaka fiista ayaa laga rabay maxaad iga qaadi kartaa adiga aniga waxaa igu ballan dadkan hortooda inaan sharafta kaaga qaado وريا قفل بموبيل هستو عربا إنا قفتان كتبتان وحاكو سميناي عنيقا أمريكي قوة وكبريا ولا لا وكبريا وكبريا maxaa dhacay kaartig aan igu sheeg waxa dhacay video
adiga laakiin waxaa loo baahan laba saacadood inaan wada waxaa laga yaabaa hal waqti inaan wada hadduu waqtigan mid noqdana nasiibkeenana isku mid ayuu noqonayaa gaashaale magaalada aanu joogno waxaa ka dhaca mar walba dil dhac kufsi boob waxaas dhacay dhan waxaa u sababa keeshow iyo walaalkiisa iyagoo og in sharci uu ka jiro misle waxay aaminsan yihin sharcigaba in uu jiibkooda ku jiro anigana anigo midaas ka damqanaya ayaa keeshow waxaan u xiray garays si uu u ceyboobo waayo dhibaato walba beledkan ka dhaca asaga ayaa sabab ah iyo walaalkiisa waxaad adiga samaysay qalad iyo sax wixii ma sheegi karo balse waxaan kuu sheegaa labiskan annaga in noola siiyey in aan xabadaha tuugada ee soo gamayan shafka aan u dhigan oo aan dadka difaacno laakiin labadan nin dartooda sharafdha ayaa noo soo gaartay marka waxaan kaa codsanayaa dadkan inaad layso wax walbaba anaa xalad ku dhiganayo gaashaale aniga midaas qalad ayaan u arkaa dadkaasoo kale haddii aan noqdo hub qaato magaaladan oo dhan wada qabuuro ayay wada noqonaysaa keliya waxaan kaa rabaa qaladkaan galay inqaartiisa in aan maro diyaar ayaan u ahay waxaad igu xakunto sharcigina kama weyni waxaad igu amartana waan qaadanayaa aniga ma laga yaaba nin daacada adigoo kale inaan xiro sharcigana dembi ka geli maayo iska baxa halkan maxaad igu yeertay war saaxiibtaa sidaad iga dhigta aniga dhan shoo bilaana noqda hadda shoo bilaan rabaa miiraaxaysaane haa nakeen nama waalata maxaa kugu dhacay war aniga ma waalano keesho si uga arsata darteed sababtaad aniga ii samaasha ii sheeg midaas ayaa rabaa inaan ogaado war waan ku dilayaa ma ku cafinaya aniga kawankaas toosii dillo war adiga waxba dheer u malay aniga hooyaday aabahay intaa ka dida ayaan iskuulka iskaga jooga adiga darta ayaan u jooga adigana waad i qiyaantay ii sheeg sababtaad ii qiyaamaysa aniga fidiya baalan oo kale isku wale anig kadib ay dil war wajixnaa maarta fidiya baalan inay kugu soo kor istaagsan maxaa kaa qaldan adiga war maxaa kaa qaldana dilaada miya aniga gurigeena markaan ka soo baxayo qudha nin walba wuxuu hamiyaa gabadhaan quruxda badan siduu ku heli lahaa adigana jacaylkayga ayaad qoorta ka goysay waa ii sheeg aniga markaan halkaan imaanahay qorshe ayaan u imaaday laakiin waxaa xaqiiqa jacaylkaan aniga kuu qaad markaan ku arkay waa mid dhaba qof burcada misna gabar bii siinaysa markaan isku dhuftay waxaan ogaaday inaad tahay gabadhii riyada qof qorshe u socday qofku warwa markuu arko wuu isku dhiibaa anigana adiga ayaa iskaga dhiibay hortaada naag ma jeclaano hay guriga hubkeena dekay inaan degmo biigaha iska waran dhib ma laha marba gabadhan dunida ugu jeclaa haddii ay go'aansatay in ay lamaano samaysato aniga run ahaantii wax dhibaan u arka mala aad ayaan ugu faraxsanahay wiilkan wuxuu la yaaban yahay aabbiyo halka taagan oo saan u hadlaya laakiin aniga waxaan hooyo reer magaal ah gabadhayda waxay jeceshahana waan la jeclahay marka gabadhayda adiga oo keliya ayaa mas-uuliyaddeeda qaadi kara gabadhayda adigaa iska leh waryaada ninkaas waa in aad raadisaan magaaladoo dhanna cabsi inuu bannaanka uga soo baxa ayaan rabaa markuu soo baxane aniga ayaa ugaarsanaayo igama badbaadaayo taasi mid macquul noqonaysa maahan dadka mas-uulkuna nagama cabsanayaan cabsidoodil way ka guurtay qof laga gabanaya ma leh annagaaba qalqiil ku jirnaa markaanaan ku dhahay dadka dhamma nala shaqaynooyin hal haween ayuu atoor ku noqday asaga walaan hakomad hoos soo deg wax adag be walaal ganesh mar hore ayaan dhaweeyey kaale soo dhawow soo fariista see kaa noqotay gurigeena maa nagu soo dhaweynaysaa ninkan waxaan rabaa raashinka ugu qatarsan gurigeena in loo keeno sidaa maxaad igu fiirinaysaa waa aniga cadowgaaga walaalkaaga markaan u dhameeyey waxaan umalaynaya hawsha inay dhammaatay balse adiga markaan cagajgelintaada maqlay waxaan ogaaday hawsheeda inay qadiyad tahay sidaas ayaan gurigaa u imaaday qaladka aad iga gelaysa adiga ilaa hadda ma ogid waad aragta walaalkaaga falxumadaan u dilay isla sidaas ayaan ku dilaya haddaad afkaada xiri weyso hadhowna waxaa la wey doonaa qof adiga meydkaaga gubo amama duuga carruur iyo cidoolna adiga ay kuga cayaaraan sidaad ugu cayaarta ayay kuga cayaarayaan middaas ay iloobin
aniga waxaan maqlay inaad ibaadi goobayso misna aad i raadinayso waxaad ilowsan tahay hal telefoon oo keliya haddii aad isoo dirleed aniga fadhigaa kuga imaan lahaa xitaa kafeeyaad cabayso free aan kaaga dhigi lahaa lacag kaa maqaadi lahayn aniga calaajabag ayay noqoleyd midda gabadhan ayaa kuu soo hartay waa indhahayga nuurkooda balana waxay ku qaaday nolosheeda inay ila qaybsato balanta inaan ka oofin halkan ayay joogaysaa wiilkayga adiga mid taha iloobin libaax inta uu ka fog yahay ayay fiirsada ku fiican tahay mar hadduu hoosta ka soo galo waxaad ogataa libaaxaas inuu ku cunaayo aniga ma dhihin taariikhda ayaa xuseyso waa run laakiin waxaa ka sii daran ninkii libaax intuu tagay madaxa ka salaxa kadibna qoorta ka gooyey hadalkaaga ayaa hadda wadday ugu furantay aniga midaasna ogow ayaan ku dhahay inaad heshiis rabto maxaad igu sheegi weyse waa wiil balaayo iska dhigaayo waxaad ogaataa qofkii balaayo ku cayaara balaayada inay ku cayaarayso aniga ma dhihin taariikhda ayaa xuseyso qofkii bisada iyo qofkii libaaxa taariikhda ayaa xusayso marka wakhtigeeda la gaaro walaal waddada muu galnaa muu dhammaynaa inta tacsida oo halka ka dhammaanayso gacan yaa loo qaadin soo niima dhihin anaga maa gacan qaadin dad ayaanu dareena oo ku dhahay walaal ninkan kalsoonida guriga ku soo gala ayaan la baqayaa aniga maxaa yeelay ninkan waa nin khatar ah lugahaaga hoostooda ka soc ayaan ku dhihi lahay isku badnaa walaal saaxib meesha mar walba ay farxad noocan oo kale ka dhacda joog waa inaad noo badishaa yakh midaan waa caadaysana mid kale ka cusub noqeen midaan waa nacanige mid macaan badan noo soo saar haddii aad hoostaye jabiga bedel wuxuu ka wadaa mataqaanaa wuxuu raba anaga jabigeena in uu bedelo laakiin annaga midaas kama yeelayno annaga jabigeena intaysan bedelin ka hor ayaan jabigiisa bedelaynaa asaga aniga ma dhihin waryahay nimankiya haddii ogoshiin aniga inaan hadlo waa hadlaa raalli aan ka andhaka jawigayga in la bedel diyaar aan u ahay laakiin waa inaad marka hore jawigiina aad bedeshaan goobtan waa inaad keentaan naago qurux badan haddii aad rag keentaan sidii warqadii oo kale ayaan u jeexayaa aniga ragga xaggeygana waxba kama ahan tolkaa tahay iisoo duceeya idin iri dhammaantiin caabi gabdhaahoy quraxmaashin चखने के टेस्ट तेरा कोई सुनिए सोने चांदी से मैं तुझको सवारूं तुझको भी
जाओ आजा मेरे पास साथी नाग बड़ी तेरा दूसरा सही साथी नाग बड़ी तेरा दूसरा सही Makai, capa menga kuyamba ukumbe mampa kauji sombe, capa hi, ambire enya kuyamba hi, ukumbe mampa kauji sombe, jamuro jambala jambalula nasraminana na hisa turrijana. ayl badana idageysa adiga waxaa la gaaray waqtigii wiilkeena anaga aan u aari lahayn horta ayaan ka soo goynaa nakeen adinka kaartag kaadiya ninkan anaga akhbaarta beenta waxa uu noogu soo diray waxa uu rabay ninka wiilkeena diray in uu halkan ka fakiyo laakiin anaga midaas kama yeelayno maantana waxaa ogaataa in aan kaartig dilayno cid bini aadan oo naga celin karta haba yaraatee ma jirto ماذا تقول محايتي معنى ورياهوي دتك أو بوتيس كعبسها أنيجا ميهلا أنكويري أنا عايزة وحن ربا وجهي أوكي ما بلا وين قلنا براو ورياهوي بوتا واحدة ماشي دتك لك عبسها ما أنا ما كعبسها سكين ورياهوي أنا من عبسها ميه دلا شيء ده ولا جولا دود لي بقى حنكو دنجيجا ورياهوي أنا مكول دجالة ماي أديك ننفع حاجة كل دجالة معني وكاير يا كارتيك adeer 13 maalmood ayaa aniga iscelcelinayay ugaarta aan gaadgaadayna horteeda ayay taagan tahay waa maalintii ugu dambaysay taasiida walaalkaa meesheed masaakiinta aad raashinka sileed ma waxaad halkan u timaaday inaad dagaalii fooda abaabusho 10 qofood oo adiga aad soo dirtay haddii ay feri ugu dhuftaan aniga midas waxba uma arka laakiin hal feri aan ku dhufto 10kooda haddii ciidda ka hoos mari waayaan aniga ayaa ku imaanaya gacantaada weliba sidaa doonta igu inqaab beelo waa nin ragga ninka sidaan u hadlay haddii aad dagaal u imaaday yaad u xeeran tahay gacmo furan ku soo dhawow aniga hortaada ayaan taaganaa soo soco hadal badan hadma buuxsha ayaan ku dhahay aniga ayaa ku tusaay waxa aad tahay meeshan ayaana kugu jarjarayaa iska kaydhiya ayaan ku dhahay cid kaloo kula dagaalamaysa malaha adiga markaad walaalkay gacan u qaadaysay soo ma ogeen marka aniga gacanteyda aad soo gasho in aadan iga badbaadeen
war dadkoo dhan haddii ay isku yimaadaan cid iga kaa badbaadin karta ma jirto iga kaana gabarta tan soo ma ahan gabadhii aad rabtay inaad guursato hortaada ayaan baasiin intaan ku bilbada dib qabadsiinayaa haddii aad iga badbaadin karto keena basiinka kusuba ayaan idhaa basiinka walaal kusuba si fiican u daawo adigii iska daaya aabbaha xataa ma badbaadin kara ayaan ku soo istaag aniga anaa la siinaya walaal wax maa ku gaaray dhammaantood ii soo aruuriya soo socda warya soo socda haye wiil yahow markaan kaa diidayay dadkan arrimahooda inaad faraha la gasho sidan ayaan kuu diidayay maxaa yeelay waqti fiican ayaad akhbaartooda soo gaarsiisa mooye saacaddan way kuma bicin lahaayeen hadda gacanteeda ayay soo galeen taariikhdaana xusi doonta mar dhow ayaga way u dhammaatee gaashaanle bistoola soo qabanaysa annagaan ugu kor jaranaysa waxaad ogaataa adigana taariikhda in ay wax kaa qorayso xaafadda awjud annaga ayaa u tirinay yaa way cidda gacan noo qaadan karta carwaa kaas annaga qof soo baxo gobolkan dadka degan niyadda ayagoo ka jaban ninkan ayaa u imaada kalgacayl buuxa ayuu siiyey asagana wuxuu mudanya kalgacaylkiisa in wanaag loogu bedelo akhbaar farxad leh ayaan idiin hayaa maxaa yeele ninkii magaalada qasi jiray maanta gacanteena ayuu ku jiraa sidaad doontaanna waad ka yeelan kartaan fasaxaad u tihiin qofkii dhibaato badan geystaa ogaada mar inay bulshada ku kacayaan oo qoortiisa ay qac ka yarsiinayaan hadalka maxaa samaynaynaa waan isguursanaynaa no waxgarad ayaa tahay guurka wax ka diyaarino okay marka cunigaan dhalano